wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaranka mas'uulka uga tahay waxa ay soo saartay wareegtadan iyadoo laga hortagayo dhibaatada ka iman karta soo gelidda wadanka qalab aan u diiwaan gashanayn hay'adaha ku shaqada leh waxay wasaaraddu joojisay in wadanka la soo geliyo qalabka dhinaca macdanta ku lugta leh ee aan ogolaanshiyaha ka haysan wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland in wixii qalaba ee la xidhiidha macdanta laguna haysto dalka gudihiisa la diiwaan geliyo isla markaasina laga diiwaan geliyo wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland muddo dhan 30 maalmood muddada loo qabtay diiwaan gelinta wixii ka dambeeyay qalabka aan diiwaan gashanayn waxa uu noqonayaa mid sharci darro ah waxaana laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha wareegtadan ku socoto oo ay ka mid yihiin wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda hay'adaha amniga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaarada iyo dekedaha dalka waxa laga codsanayay inay waajibaadkooda qaran ka qabsadaan arrimaha kor ku xusan warqadan ayaa waxa ku saxeexan wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Jaamac Maxamuud Cigaal